haweenka gobolka Sool oo soo baxay inay baaq nabadeed u diraan walaalahooda ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool soo waxaad garateen ma ilaahay ka cabsada oo ilaahay u noqdo oo toobad celiya oo intii ka dhimatay ilaahay ha u naxariisto oo in dambe ilaahay kaga ma daro oo aqeedadiina iyo iimaankiina eega oo ilaahay bareentad banaan istaagtaan oo iswaraysataan ma caruuraha la agoomeeyay oo islaami baa la goblamiyay oo guriyada baa la baabay oo galgal been taaganahay ma waxa rabtaan dhulbahantow inaan maanta galgal istaagno war ilaahay ha laga cabsado anagu ilaahay baa idin baryeynaa wax kale inana garanay naf iyo maal idin kala hadlayna ma maqlaysaan war taawna maqla naf iyo maalba way idin dul dhigaynaa bal maxaa doonaysaa ma waxa rabtaan in wiil iyo abti iyo walaalkii in adeerkii iyo halkii istilo magaxumaan u dhimanay oo adduunka waa laga yaaban yahay oo waxa dhulbahanta magaala ka hadba gaala ka hadbeen taagana waxa maqlay dadkaas waa gaala ka had maanta gaala ka hadbeen taagana war Allah laga cabsado ilaahay ha loo noqdo oo ilaahay laga cabsado oo guriyada waa la gumaad caruuri waa laga caruurti baa la laayay war ilaahay ka cabsada oo anagu waa qarxan baanu nahay ilma xayalawna maqla oo waa idin imanayna oo maslaxad iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inta banaanka u baxlo aan marino war ilaahay laga xagaba si laga daayo oo haweenka la gobliyo hal la daayo oo wiil yaaftiga istiraya oo wiil yahrudaaga istiraya oo wiil yaaftiga istiraya war waxa soo kala lama arago lama maqal war aduun magac baa ka hada war miyaydan islaam ahayn bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan baa qudirayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan baa qudirayaa waxa la wixii magaca muslim sheegta ee muslimiina ee ku nool gobolka Sool iyo nawaaxidiisa waxaan baa qudirayaa wax allaala wixii labada beelood la darisa waxaan baa qudirayaa wax allaala wixii islaama waxaan baa qudirayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan baa qudirayaa wax allaala wixii Soomaalinimada doonaya ee jecel ee ka gilgisha labada qof ee Soomaalinimada iyo islaamnimada iyo walaalaha iyo dariska intaas ee isku dilaya wax allaala wax adduunyaale wax allaala wax isku haystaan waxaan la aqoonin dagaalku magac male waji male hooya ku gablantay aabba ku dhintay wiil iyo abtigi baa ku dhintay waa dagaal foolxun wax laga sheegi karaa ma jirto waa dagaal foolxun wuxuu ku dhacay iyo wuxuu ku socdana ma jirto waa bilaa magac waxaan ummadda islaamka u dirayaa waxaan ummadda Soomaaliyeed u dirayaa waxaan walaalaha la dariska u dirayaa in meesha la soo gaaro beesha gobolka Sool waxa ka socda xasuuqan inaba caadi ahayn ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta ummadda walaalaha ummadda wada dhalatay ummadda halka saliya ku wada fadhida ee wax la kala qaadanayn waxay ku dhimanayaan aan la garanaynin muslimiinta islaamka Soomaalinimada darisnimada talnimada islaamka waxaan u dirayaa inay soo gaaraan baaqa in la soo gaaro magaca Soomaaliyeed lagu soo gaaro magaca islaamka lagu soo gaaro muruqa ku bixiya intuba waa isku mid waa samla daar isku mid weeye dadka dibadahu waxaan u sheegayaa hubka waxa lagu iibinayo waxa lagu tacabgalay inay naga deystaan lacagtooda intaasaan iyagana u sheegayaa haday islaam yihiin weeye oo ay garanayaan oo islaamnimadu u muuqato naga deysteen ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa 24 saac gudahooda gobolka Sool xaaladda ka jirta in lagu soo gaaro dawladda farmaajo u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed baan u sheegayaa waxa la wixii muslimiin aan u sheegayaa 24 saac gobolka Sool lagu soo gaaro waxaan leeyahay indhaha yaan laga qarsanin yaan laga gabanin yaan laga daalin walaalka baad gowracday waraabaha gowracday warabtiga baad gowracday warinantaadi irankaagi baad gowracday war wiilkaagi baad gowracday war ilaahay ka cabsada war isku mid baad tihiin war ilaahay la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ittaqullah war ilaahay ka yaaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un war dumarkii maatadaha joojiyo war maganta la leeyahay joojiyo war guryaha rog maraya joojiyo war waa guryihiini isku gogol baad tihiin wallahi isku guri baad tihiin isku gogol baad tihiin isku biyaa tihiin la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah war bulshaweynta waxaan u sheegayaa bulshaweynta daarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ummadda intii diin naxda intii diinta islaamka ku dhaalatay ku dhisatay ku dhaqatay war dhiiga dhacay in la joojiyo wallahu akbar la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah waragi dhamaa wadadkii isku dhamaade la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ilaahu noo ka waar ilaahu noo kala fogay ilaahu noo kala jooji ilaahu xaqatus ilaahu iimaanka ku soo celi la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah wariya islaama ka dhintay wuxuu ku dhintay la garan maayo kan noolina wuxuu la nool yahay lama garanayo kii maal bixiyay kii muruq bixiyay kii xabada riday ka dhintay waa isku raqam meel bay wada taagan yihiin
إنا لله وإنا لله راجعون ورا شهادة ورا الله النقضة وكبحنا حيدانك إلهي يا إلهي النقضة ور إلهي النقضة ورني أيضا إسكرانين ور حقات بصر الكوبنا horta waxay reer ku toosaan in marka ama ay dadku hagaagaan ama dawlad dhisantaa marka qoyska laga soo bilaabo beeska laga soo bilaabo oo ay ka soo bilaabato edabta iyo nabadda iyo mataqaan sadexgalka guriga waxaan halkan dhammaan ummadda muslimiinta ah oo ay meel kasta joogaan waxaan leeyahay walaalayaal maanta iyo shalayba foolxumada ka dhacday gobolka Sool waad aragtiin marka waxaan dhihi lahaa inaad walaalayaal wixii aad tamar ah aad mataqaanaa leeyahay waad aragtiin foolxumada ka taagan dalka ininka waxaa tiin mataqaanaa dadka u bixi dalka u dhashay maaha maanta u bixi dalka u dhashayna anagu murug mataqaanaa ayna dhex taagnaato dadna ay mataqaanaa ay raaxaystaan dadka adduunka jooga maanta way hormareen waxaa laga hadlayaa sidii mataqaanaa dal lagu hormarin lahaa sidii mataqaanaa mashruuciyo loo furan lahaa maaha maanta in laga hadlo ama mataqaanaa laba wiil isku qori isku qaataan xaaladda meesha ka taagan anu waxaan dhihi karaa maaha xaalad siyaasad maaha xaalad mataqaanaa dhul loo dagaalamayo waa xaalad mataqaanaa dad jaahiliina oo maskaxda laga xaday ma garatay waxaas aan dhihi karaa anugu siyaasad ay dad waaweyn ka dambeeyaan oo ay qoryaha la isugu dhibay ummaddaas dhalinyaro aan waxba geysan dhalinyaro aan weli nolosha waxba ka arag in mataqaanaa maanta hooyadood ay ku goblanto wiil hooyadiis ay mataqaanaa 15 sano 18 sano 20 sano ay ku soo tacabbelisay inuu meeshaas ku dhinto mataqaanaa waa arrin laga ooyo oo aad iyo aad u fool xun waxaan halkan baaq uga dirayaa dhalinyarada dhammaan reer Sool inay mataqaanaa aysan mataqaanaa arrintaas aysan ka fariisan kii jaamacad dhiganaya kii iskuul dhiganaya maanta wax baran lahayn maanta waa maalintii mataqaanaa aynu bardiiq madax marac isku xiran lahayn dadkeena inay horumar gaaraan dadkeena inay isku tiirsanaadaan maaha inaynu dhahno dawlad heblaha naga baxdo waa eray mataqaanaa fool xun anaga siyaasad nooma taalo shacab ayaan shacabkana sidooda waxay wanaagsan inay mataqaanaa dantooda ka hadlaan wixii ay nabad ku heli lahaayeen ay ka taliyaan odayaal beeleedka garaadada ugaasyada dhammaan waxaan leeyahay arrintaas in laga fariisto maaha arrintaas waa in si wanaagsan oo waxqabad leh mataqaanaa tallaabo degdega looga qaadaa dadkaasna waa in la heshiisiyaa walaalayaal waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa labada beel ee meesha ku dagaalamaya ma dhihi karo waa laba qabiil maxaa yeelay qabiil dhan ma raba inaan madax goosto waa dhalinyaro meesha wax ku dagaalamaya waxaan leeyahay walaalayaal joojiya dagaalkaas ilaahay waxaan inaga baryanaa inuu beerkiina burcad isu mariyo ma garateen waxaan leenahay walaalayaal horta in mataqaanaa tii adduunka laga fakar maaha tii aakhirana waa in laga fakaraa qofka muslimka ana waxaa wanaagsan gaalkaabaa waxaa lagu yidhi gartiisa sii dil gaalka gartiisana sii marka walaalayaal annagoo soomaaliya muslimna hal diin hal luuqad ku hadalno inaynu maanta isfahan weyno waa shay aad iyo aad u fool xun madaxweynaha farmaajo ina khayre waxaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed wixii aan Soomaaliland ahayn inay soo gaaraan maanta lama raadin raga lama dhexgelin biyo looma qaadin oo baad looma qaadin lama soo ururin maatada looma qaadin waxa weeyaan laga kaco fadhiga maatooyinka leedo halla dhex galo ilaahay dadka loo dhex galo maatadu waa wadhantay ragga iskooynayow xalay waxaan ku riyooday waxaan idhahdaa kii dhintay yaa soo saara ilaahay awood waa u leeyahay wuxuu la kulmay in la waraysi lala yeesho qabiil buu u dhintay uma uu dhiman ilaahay dartii uma uu dhiman jahaad qabiil buu u dhintay anoo ku hadlaya magaca dadka tiiraanyeysan waxaan ku hadlayaa labada qabiil ee walaalaha eesaya in ilaahay nabad ku soo dabaalo in la kaco bulshaweynta dhalinyarada odayaasha waxgaradka oo dhammi inaan la fadhiyin inaan la ganacsan in magaalada la xidho inaynu ka kacno inaynu gurmanno inaynu biyaha u geyno inaynu baadka u geyno inaynu la tiiraanyeysno maxay tahay dadkan iska ganacsanaya iyo dadka dhibaataysan ee walaalaha dhibaatadu haysato bismillaahi raxmaani raxiim miyaydin muslin ahayn meye wadaadadii meye waxgaradkii meye cuqaashii meye culimadii meye dhallinyaradii meye dumarkii meye gurmadkii meye dariskayagii meye walaalihii meye walaalo ka dhalanin waxay ahaayeen haweenka gobolka Sool oo soo baxay inay baaq nabadeed u diraan walaalahooda ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool waa Muna Axmed Cabdi Muna Maandeeq Soomaaliya TV magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool